nabadda wade ku soo dhawow barnaamijka deegaan ee shabakadda Lababaar Media. Waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa marxaladaha magaalada Muqdisho ay ku sugan tahay. Muqdisho ama Xamar waa caasimadda Soomaaliya, waxayna ku taallaa koonfurta waddanka. Waxay ka kooban tahay 17 degmo. magaaladu wixii ka dambeeyay 1991 burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxay la kulantay burbur iyo dhac magaalo. waxa ay dib uga dhacday caasimadaha asaageeda ah ee ku yaala geeska. magaaladu waxay fariisin u tahay dawladda dhexe ee Soomaaliya. waxaa degan dawlado badan oo safaaradaha ku matalaya ugu sugan magaalada Muqdisho. magaaladu waa midda ugu weyn magaalooyinka ay Soomaalidu degto, waxaana degan dad lagu qiyaaso ilaa 4 milyan. magaalada ayaa waxay joogto u tahay weeraro, qaraxyo iyo sidoo kale ismiidaamin. sidoo kale magaalada waxaa jira tuugo kala duwan oo dhac u geysata dadka shacabka ah. dawladda Soomaaliya waxay canshuuro ka qaadaa shacabka magaalada iyo ganacsatada ku dhaqan caasimadda. hase ahaatee taa beddelkeeda waxay shacabku la kulmaan dhibaatooyin, wadooyin xiran, burburka laamiyadii horey loo dhisay. Xamar oo ah goob barwaaqo soorana, webiyaal ay hareeraha ka maraan, beerana ay u tabcadaan bulshada ku nool, haddana ma aha magaalo amnigeeda la isku halayn karo. taasi ayaa sababtay in dad badan ay ka hayaamaan waddanka. dhibaatooyinka magaalada Muqdisho ayaa saameysay in badan oo ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha dalka. daawade waxaan intaa ku soo koobayaa qormadii koobneed oo kaga hadlaynay magaalada Muqdisho. halkaad naga daawanayseen waa Lababaar Media.